اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد لبيان منهج ديننا بثبات في شعبتي كنا كقلب واحد أخوات صدق أيما أخواتي كانت لنا رفيقة دربنا كانت ندى بعد الإله حياتي واليوم قد جاء الختام. حفلتاني وحفلة lagu maamuusayo arday quraanka dhameysay kuwa dhameeyay macadka shariicada islaamka kuwa imtixaan galay oo la abaal marin doono kuwa duruus sharciga qaatay tafsiirka quraanka qayb kamid ah oo ayagana la xusi doono la abaal marin doono masaajidkan quruxda badan oo xafladan ku qabanayno oo ayana la furi doono insha Allah ta'ala oo aynoo dhameystirmay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa dadkii khayrkan inoo keenay masaajidka inoo dhisay markaskan quruxda badan inoo sameeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala labada daarood bayna u hagaajiyo labada daarood baa Allah u hagaajiyo Dr. Abdul Aziz iyo Dr. Hamdi jazaahum Allahu khayran inta kala walaalaha ah oo noo timid oo soo ajiibtay yeeritaankayagii aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa imaatinkiina inta ka bacdi waxaan rabaa xoogaa inaan u mahad celiyo dadka xafladan sabab u noqday ama intaas oo dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho leh inay maanta kitaabkii Ilaahay xafidaan علمي الشرعي وأشرف العلوم هو كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذاتك برتي أما برانية سببه نغضي بان هاد علينا مركلة كواسوا دكاترة دكتور عبد العزيز خير الله سيو إيو دكتورة حمدي وزوجينا إلهي وحنكرة شيننا إن شاء الله كوي آخرنا زوجين سنة غضة وجنة العليا جنة الفردوس إلهي وجاي إنه كديو بان إلهي كعصنا إن شاء الله تعالى عمل كان وين ويقبتنا إنه قدره ميزان حسناتهم في يوم الآخرة إن شاء الله إنه كديو رجينا إلهي باربرينا والدين تا إلهي نصيب كوسي مركز كان وحرب إلى الموضوع أو فايديان أو يو كفايديستان أو المها كلية إنسان قرآن كبرينه إيونا إبرتان dhaqanka Soomaalida waxa kamid ah odaygii iyo quraanka iyo xabad la joogin xabaan la joogin oo faataha aan sixi karin inay ilmihii quraanku dilaan oo ay usha dalada ka soo garaacaan mana garan karaan sida aad wada maqasheen maamada caan baxday oo Soomaalida dhexda ka caan baxday oo aabe subaxii maanta ma soo gashay hawa soo galay xageed ka qaaday thumma ka qaado nadaran ku geeyay إلهي خيرك السيو الله ويلكي وفي عنا مركز سيسان أرنتاس ودعين وضياشا هي ماموينك هي قبلها هي عرورتو سوحة وبرتان waxaan si gaar ah u mahadinayaa runtii annaga magacay waa soo celisan laakiin waxa facaalka ah oo shaqadan Ilaahay ka sokow subhanahu wa ta'ala hirgeliyay waa odayaasha dacwada ee magaalada jooga si gaar ah waxaan u xasuusanayaa Sheekh Farxaan إلهي وحن كبر يا عمري سنو إلهي بركيه علمي سبركيه أولادي سلاي أبركيه ووقع من شيبة وشيب لا يراه لكن وحوي وحود تاجني هاي أفراد الساعة إنه خير كشقيه يا مشقيستو تجارة ما هذا لكن حكى عن إنه ضد كاس أخدميه كنت وإلهي ما أبري إنه عمك سيكقبله السجا أنت لا شقينيسه شعب النور
macallin maxamed iyo ragga la mid aan xusuusanba waxaan galoo si gaar ugu mahadcelinayaa cabdisalaam khayr allaha siiyo masaajidka arkaysaan ninka dhisay waa asaga waqti badan uu ku bixiyey wuu u soo jeeday meel kastuu ugu safray wuxuu ku dadaalay jeebkiisa lacagtii loogu talagal lacag ka badan inuu geliyo si uu wax fiican u sameeyo asna ilahay waxaan uga baryaynaa beyt qasri weyn ilahay beydkiisa jannada ilahay uga dhiso dhallinyaroy iyo waalidow hal kelmad baan idin leeyahay aniga waxaa ogaataan adduunka iyo saacaduhu waa fursado socda waaye fursaddu ma soo noqoto qofka caqliga leh marka wuxuu ka faa'iidaystaa saacadda socota wuu fiiriyaa fursaddu ka faa'iidaystaa bini aadmigu intaas isku dhaafaan keliya aad iyo aad baan waxaan ula tacajubayaa markaan imaado meeshaanba magaalada weynoo aanu ka nimaadno iyo kuwo waaweynoo kaleo aan tegey fursadaha aan lagu haysanoo aad ku haysataan meeshaan yartaa oo qorraxda ah oo geedaha quracdaa kaliya ku yaalaan geed kale lahayn waxa aad ku haysataan baan la yaaba ilaah idinku siiyey waxaan u malaynayaa dhir aan ka bixi jirna baa ka soo bixi doontaa dad aan ka soo bixi jirin gobolka hadday ka soo baxaan oo qurraa ah oo qur-aanka loo soo doonto intaas waxaan idinku leey ku faraadayga ilaahay ugu shukriya waalidow fursaddaa haysataan wax yar baa dadka haysta ma jiraan sidaan kale isugu saaran tahay oo nicmadaan isku haysta oo magaaladan yartaa ku haysta waxaan magaalada weyn hadda qoladix waa ku haysataana sharteeda iyo shaydaankeeda badanba waxba lagu hakin waa ilaahay meeshiina qaryada ay ku siiyeen wacada ugu shukriya kuna faraadayga intaa waxaan ku darayaa qolada qur-aanka hadda xifdiday iyo kuwa hore u xifdiyey iyo kuwa xifdin doonaba horta qur-aanka inaad barataan kaliya ha u baranine waxaad niyeysataa dadka inaad bartaan meeshaan galbeedka waa arag dadka nooga yimaada oo qur-aankay u bartaa qur-aanka wuxuu soo bartaa dadka inay baraan oo soo shaqo tagaan soo qur-aan yaqaan buu yimaadaa shaqadiisu waa qur-aan weligii qof galbeedka yimid ma aragteen shaqo kala haya kulligood qur-aan bay soo bartaa qur-aan bay dadka baraan haddaad qur-aanka u barataan kaliya hebel waa macallin hebel waa xifdiyey hebel waa dhameeyey waxba intari maayo inta carrada joogta boqolkiiba sagaashan halkaa fadhiima qur-aanka xifdisan lama arka amaan dhammayn dhowr jeer laakiin qur-aanku macnihiisu wuxuu samaynayaa marka dadka la baro la dhammaystiro anigu waxaan ku hadlayaa waalidiinta afkoodii waalidiintii dadka xufaadda ah oo qur'aanka bartay oo aabbayaalka iyo hooyooyinka ah afkoodii baan ku hadlayaa waxaannu leenahay waa mahadnaqaynaa waana ducaynaynaa waana faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay carruurtayadii oo qur'aanka baratay waxaannu ku faraxsannahay carruurtayadii oo waxa ka la yidhaahdo kharash badan uusan nooga bixinin ilaa sadowrabaqa guriga mooyaane intaa waan ku faraxsannahay waxaanan ilaahaya ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo barakeeyo waxa aan barannay ilaah ayaa mahad iska leh ilaahay mahaddiisa gadaasheeda waxaan halkaan uga mahad celinayaa labada digtoor oo hawshaan inay halkaas soo gaartay iyo dacwadan yacni u ahaa mas-uulka oo halkaas inaan nimcadaas ilaahay nagu arsaaqay iyo ilaahay ayaga noogu soo dhiibay waad mahadsantihiin ayaan leeyahay digtoorkuna wuu fadhiyaa digtooraysadana meesheeda ayaan ku salaamayaa in si gooniya doctor cabdicasiis iyo doctorayso xamdi oo aanan la'aantood halkaan soo gaadhneenna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtooda adduunka ha dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatu firdowsul aclaa ha ugu bishaareeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cimriga ha u dheereeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ha ugu daro ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga axwaashooda ka warqaba meelaha ay ka tawalayaan oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u kamilo laba dumana waxay dhaleen wiil iyo gabar mid kasta waxay tahay aniga wiil ka dhalay aniga wiil ka dhalay waa la isku qabsaday marka waqtigaas DNA-ga waxaasna ma jirin markaasaa hala dhiigaysto ilmaha dhiigaysteen nin cilmi ilaahay ku shuba wuxuu yidhi maxaa dhacay ii keena labadii islaamood bahasha ilmaha caanaha loogu shubaa loo keenay magaceeda lagu qoray heblaayo miisaanka la saaray waa la isleekaysiiyey labadii caano islaamaha laga soo qaaday waa lagu shubay isku mug baa laga dhigay kii wiilka dhashay miisaankeeda waa degay ninkii intuu soo qabtuu yidhi haadaa tabca alwalad wiilka ii siiya dhakhaatiirtii waa yaabeen war heedhe laba weel oo isku mug ah iyo volumkii oo isku mug ah see midna hoos u galay midna cirku u aaday ilaahay wuxuu yidhi yuusikumullahu fii walaadikum lidakari mila iigu dara ilaarda unsayeen waa kaa raggu waxay leeyihiin labalaabka nasiibka gabadha taas waa qiso dhacday fiiriya
marka sharciga islaamka wuxuu dhaafay male ma faradna fil kitaab min shay marka haddaan sii wadi lahaa waxaan u baranay baba hurdana qaban lahayd laakiin insha Allah ku soo koobayna tan kaliya aan ku darayo waxa weeye cilmiga aad haysataan ka yar baa la haystay waxa dadku lagu kala duwan yahay maanta oo aan dadku aysan haysan waa ku dhaqankii shariicada islaamka akhlaaqiyaadkii waliba mucaamalaadka salaada masaajidadu waa buuxaan dadka marka wax la barayo hal la baro hana loogu daro inay mucaamalaadku ay yihiin aasaasi diinteenu waa diinul amal نقول لكم مرحبا بالكرام والضيوف العظام ادخلوا بالسلام لكم الاحترام ذاك معهدنا هو قبلتنا فيه كل المنى وبلوغ المرام فيه كل المنى وبلوغ المرام ديننا والبلاد دأبنا والمراد رمزنا الاتحاد سيرنا للإمام نحن نشأ صغار رافعين المنار ليلنا كالنهار لا نهاب الظلام مجدنا سيعود سنكون الشعار للعلم والسلام مرحبا بالكرام والضيوف العظام عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد